maanta waa movie reaction oo aan ka sameynayno filimka lagu magacaabo Kaysari Chapter 2 oo ah Akshay Kumar film oo hogaamiyaha uu ka yahay saaxiibayaal sida ugu dhaqsiyaha badan ayaaba lagu helay filimkan farafudeed dada macnaha meel u fadhiyaba wixii tiyaatarka la saaro oo af hindi ku baxo degdeg inay soo siiyaan wixii af hindi waay af hindi anaga degdeg ayaan ku helaynaa laakiin filimada Tollywoodka iyo Tamilka iyo koonfurta xoogay 3 maalmood iyo 4 maalmood ayay ka dambeyn doonaan saaxiibayaal haddaba filimkan marka saakay ayaan soo daawaday filimka Kaysari Chapter 2 aniga uma daawan macnaha film action ah oo lagu xarakeenayo oo indhaba aan caadi ahayn oo tiyaatarada busta ka kicinaya ayaa daawanay kuma aana fikirin marka horeba maba ku fikirin ba haddana maba ku fikirooyi adinkana ha ku fikirinina filimkan waa film arrimaha garsoorka iyo maxkamadda iyo qareenada iyo waxyaabahaas waay ayuu ku socdaa filimkan saaxiibayaal markii aad daawanaysid haddii taageero aad tahay Akshay Kumar ah waa uu kugu soconaa haddii aad tahay qof shakhsiya oo iska socdo oo u daawanaya filimkan bal filimkan Akshay Kumar performance-giisa waa la amaanay u daawana waa daawo kartaa laakiin yeeso ku qaadin qeyra Japan oo ah film macaan waaye oo action oo heer sare ah oo kala iska arag waaye ku qaadin filimkan waa film biopic ah oo history ku saabsan taariikh ka dhacday dalka Hindiya 1919kii taariikh ka dhacday dalka Hindiya ayuu quseeyaa saaxiibayaal waana sheeko dhab ah oo gumeystii Ingiriiska ay ku suubiyeen dawladii xilligaas jirtay ee Hindiya dawladii aan dhahayna dadyoogii xilligaas jiray ee Hindiya 1919kii saaxiibayaal haddaba filimkan saaxiibayaal Akshay Kumar hogaamiyaha uu ka yahay dhammaan boorta waxaa lagu dhisay Akshay Kumar iyo xanaaqa iyo abukaatinimada xeelad walba uu adeegsanayo iyo gabadha lagu magacaabo Aniya Bande oo garab siinayso ugu yaraan horta markii hore baalkii ciidanka baalka ee Hindiya gudaheeda jooga ee gumeystaha maxkamadda inay imaadaan weydiinayaan laakiin marka dambe adigu kullee waa lagu qasbaa oo si qasab ah ayay marka dambe ku ogolaanayaan Akshay Kumarna waxa waay awoodiisu kaashana magaca ninkii lagu magacaabayo ee Sankaran ayuu ku matalaa oo ah nin markii xilligaas dadkaas la xasuuqayo jooga ee abukaata ahay ee u bareeray in uu gumeystaha Ingiriiska oo maxkamadda la soo taago maxkamadda oo la soo taago ayuu baalkii uu qaadanaa magaca saaxiibayaal sidaa darteed marka Akshay Kumar alla ilaahay film waa uu ku dhacay performance-giisa waa heer saro 100